kulan wacan oo wanaagsan idilhaantiin baa daawadayaal ku soo dhawaada baahinteena wararka Sal TV ayaa naga daawanaysaan anigana waxaan Axmed Garaad warbixintan qaybtan hadii uu rabi qadara daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa Aadan Faarax oo ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga Barwaaqo sidoo kalena leh awood ra'iisul wasaare ku xigeen ayaa markii ugu horeysay ka hadlay damaca Ethiopia ee raadinta marinbadeed Aadan Faarax waxa uu sheegay in damaca iyo raadinta marinbadeed xilligani ee Ethiopia ay raadinaysa in ay tahay maslaxada iyo danta shacabka Ethiopia Aadan Faarax ayaa waxa uu markani taageeray sidoo kalena oo ka hadlay in xilligani ay lagama maarmaan tahay in loo midoobo sidii Ethiopia ay u heli lahayd marinbadeed iyo dekad iyadoo ay isticmaasho waxa sidoo kale uu sheegay in marinka badda ee casab oo dib loo soo celiyo ay tahay guul taariikhi ah iyo sidoo kale horumar dalka Ethiopia uu gaadho Aadan Faarax oo isaga aad wada ogtihiin in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo talaadadii la soo dhaafay baarlamaanka ka hor hadlay inuu sheegay diri dhaba in magaalo Oromo ay ahayd balse ilaa haatan hal mas'uul oo Soomaali ah oo u jawaaba Abiy Ahmed ama arintaasi ka hadla aan la arag ayaa markani waxa uu weecday dhankaas iyo dekada casab iyo taageerada Abiy Ahmed Aadan Faarax ayaa noqonaya mas'uulka ugu horeeyay ee Soomaali ah oo xil markaasi sare ka haya dhanka federaalka oo si toos ah uga hadla raadinta marinbadeedka iyo waliba faa'iidada dawladda Ethiopia ay u leedahay xilligani in ay dekad iyadu ay u madax banaan tahay ay hesho haddaba soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan taariikhdu waxay ku astaysan tahay 3 bisha November 2025 nagu soo biira oo ka mid noqda saaxiibada halkani hore noola joogay si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan ay ku baahinaa idin soo gaadhaan aad ayaa u mahadsantiin waayahay aynu ku bilownaa Aadan Faarax oo fariin u diray dhalinyarada ayaa sheegay in uu si xoogan uga shaqeynayo sidii loo maareyn lahaa awoodaha iyo fursadaha ku jira dhammaan qaybaha dalka si horumar loo gaaro Aadan Faarax waxa uu leeyahay waxaanu markani garab taaganahay dawladda Ethiopia iyo waliba rabitaankeeda wuxuu xusay in dawladdu diiradda saarayso mashaariicda kor u qaadaysa rajada iyo hamiga dhalinyarada isla markaana abuuraysa fursado horumarineed barnaamijka cagaaran ee dalka ee Green Footprint la yiraahdo ayuu sheegay in loogu talagalay in lagu muujiyo danaha iyo mustaqbalka dhalinyarada isla markaana lagu qurxiyo fursadaha jiilka maanta iyo kan bariba waxa uu sheegay Aadan Faarax wuxuu intaasi ku daray in horumarinta jidadka istiraatiijiga ah iyo marinada koridheerka ay door muhiim ah ka ciyaarayaan oo aan kaliya bedelaynin muuqaalka magaalooyinka balse sidoo kale kor u qaadaya dalxiiska iyo isu socodka ganacsiga kadib waxa uu tilmaamay in dhalinyaradu ay muujiyaan dadaal ayna abuuraan fursado shaqo iyaga oo keenay hal abuur cusub iyo xirfado casri ah Aadan Faarax ayaa halkan waxa uu kaga hadlay daawadayaal waxa uu carabka ku adkeeyay in su'aasha ah in Ethiopia ay yeelato dekad badeed lagu saleeyay danaha iyo rabitaanka shacabka Ethiopia ayna tahay arin cadaalad darro ah in ay Ethiopia dekadeedii ay ku weyday qaab khaldan oo markaasi sharci aan ahayn Aadan Faarax waxa uu leeyahay in Ethiopia badda ay weyday waxay ahayd qaab markaasi khalad ahayd oo aan sharci aan loo marin waxa uu tilmaamay in maanta Ethiopia ay awood u leedahay in baddi ay lumisay 1993 ay dib u soo celiso Aadan Faarax waxa uu sheegay in wacyigelinta iyo fahamka laga helay arinta dekada iyo baahida Ethiopia ay u qabto in uu hadda kor u kacay isla markaana la dhiirigeliyay doodaha ku saabsan arrimahaasi waxa uu leeyahay fahamkii waayadii hore ay dadka Ethiopianka ka haysteen marinka badda iyo qaabka Ethiopia ay u dhumisay haatan waa uu ka duwan yahay oo dadku waxa uu leeyahay aad ay uga dharagsan yihiin in qaabka baddu ay ku baxday ay ahayd sifa khaldan oo dawladihii hore ay markaasi ay ku bixiyeen laakiin maanta loo baahan yahay in laga faa'iideysto isla markaana qaab isku duuban dib markaasi loogu soo celiyo dekadaasi casab haddaba Aadan Faarax ayaa waxa uu noqonayaa mas'uulkii Soomaaliga ah ee ugu horeeyay ee ka hadlaya arinta badda
iyo weliba baahida Ethiopia ay u qabto ugu dambeyn waxa uu ku booriyay dhalinyarada Ethiopiaanka in ay door muuqda ka qaataan dadaalada lagu doonayo in Ethiopia mar kale ay hesho marin badeed si ay u noqoto guul qaran oo markaasi dadku ay uga faa'iideystaan Aadan Faarax waxa uu muujiyay rabitaanka iyo weliba damaca Ethiopia iyo danta ugu jirta waxaana ka jawaabay su'aasha ahayd raadinta marin badeed ee Ethiopia ay ku soo celcelinaysa dhawaantan faa'iidada ugu jirta iyo weliba waxa laga dhaxli kara waxa uu noqon karayo waxaana tilmaamay in ay tahay danaha dadka shacabka iyo rabitaankooda oo markaasi laga rumeeyo Aadan Faarax waa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo sidoo kale waxa uu leeyahay awood ra'iisul wasaare ku-xigeen waa mas'uulka Soomaaliga ee xilka labaad ee ugu sareeya ee dalka Ethiopia haya haddana saameyn muuqata kuma leh marka la fiiriyo dhanka Soomaalida mas'uul kasta oo xil haya waxa uu xilkaasi ku metelaa ama uu haya dad markaasi oo isagu uu ka soo jeeda haddaba geesta kale daawadayaal weli waxa taagan muran ballaaran oo hareeyay magaalada Diridhaba oo ahayd magaalo madaxdii ugu horeysay ee deegaanka Soomaalida Aadan Faarax ayaa dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida waxa ay rajeynayeen in uu ka jawaabi doono ra'iisul wasaarahana markaasi uu ka jaahil bixin doono haddii uusan si ula kaca hadalkaasi u dhihin Abiy Ahmed ayaa dhawaan waxa uu sheegay in kooxdii TPLF ay gacanta Oromada ka saartay magaalada Diridhaba oo la wada ogyahay inay tahay magaalo Soomaaliyeed weligeedna qayb aysan ka noqonin ama aysan jirin meel ay uga mid noqotay ee dhulka Oromada waxa uu tilmaamay in Oromadu horey ay u lahaan jirtay laakiin waxa nasiib darro noqotay ceeb iyo fadeexadna ku noqotay madaxdii Soomaaliyeed in hal mas'uul oo ilaa haatan ka jawaaba arrintaasi aan la arag madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida iyo madaxdii kale ee heer federaal oo uu ka mid yahay Aadan Faarax haddan hadlaya in gabi ahaanba uu ka aamuseen oo aysan wax jawaab ah ka bixinin taas ayaa lagu tilmaamay in madaxda ee Soomaalida ee dhanka federaalka dadka Soomaaliyeed ku metela inay yihiin kuwa markaasi magac u yeelaha balse dadka Soomaaliyeed metelaad dhab ah aan u ahayn maanta Aadan Faarax waxa uu ka hadlayaa Ethiopia iyo weliba rabitaankeeda iyo sidoo kale sida uu Abiy Ahmed markan uga go'an tahay in marin badeed uu Ethiopia markaasi u keeno iyo dekada casab oo Ethiopia ay ku sheegtay in ay tahay dekada kaliya ee markan iyadu xaq ay u leedahay balse sida sharci darrada ah ku baxday waxa uu leeyahay kana jawaabaya su'aalo dadka in badan oo Ethiopiaanka kamid aha ku soo dul wareegaysay oo markaasi ay isweydiinayeen qaabka Ethiopia ay badani ku heli karto waxa uu tilmaamay in mustaqbalka iyo sidoo kale rabitaanka shacabka Ethiopia ay ku xidhan tahay helida marin badeed iyo dekad Ethiopia ay leedahay marba marka ka dambaysa waxa isa soo taraysa hanjabaada iyo hadallada dhanka Ethiopia ka soo baxaya kuwaas oo ay ku saleynayaan rabitaankooda iyo baahida ay u qabtay Ethiopia xilligani marin badeed Ethiopia iyo Eritrea xilligani aad ay u kala fog yihiin dhanka siyaasadda marka la fiiriyo oo dagaal ayaa ka dhaxaloosan dhanka xuduudka dhinacyadu ay wadaagaan waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo military oo Eritreana ciidamadii ugu badnaa iyo hubkeeda ugu badnaa waxa ay keentay xuduudka ay la wadaagto dhanka Ethiopia haddaba Ethiopiana ciidamadeedu waxa ay goor horeba ku sii diyaarsay dhanka deegaanada Burre ee deegaanka Canfarta oo ah halka Ethiopia ay rabto inay ka gaarto badda cas oo qiyaas ahaan u jirta sida la sheego 80 kilomitir wax ka yar magaalo xeebeedka Casab oo ah halka Ethiopia xilligani ay rabto inay qabsato magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea waxa ay masaafo dhan u jirta 1,000 kilomitir halka Addis Ababa ay u jirto 800 masaafo dhan oo kilomitir sidoo kale xadka markaasi ay dhanka Burre kala wadaagto Ethiopia ee Eritrea waxay u jirtaa masaafo 80 kilomitir markaasi ka yar haddaba daawadayaal tan ayaa la leeyahay waa waxyaabaha u sii sahlaya ama Ethiopia ay ku sii dhiiranayso in si fudud ay ku qabsan karto dekadaasi Casab oo waliba markan iyada ay sheeganayso sharciyada magaaladaasi iyo baddaasiba ciidamada markaasi kala gadisan ee Ethiopia ayaa siyaabo kala gadisan uga hadlaya sidoo kale ku hanjabaya in ay soo qaban doonaan dekadaasi Casab
ciidamadii badda ayaa goor hore Ethiopia ay sii diyaarisay laakiin hadalkani aadan faarax ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Ethiopia marba marka ka dambaysa ay xoog sii saarayso in ay dagaal qaado isla markaana mahurta u yahay dagaal ka dhex qarxa dawladaha Ethiopia iyo sidoo kale Eritrea waxa la leeyahay 5 sano ka hor ay u sii diyaar garowday oo waxa ay sii ogeed Eritrea damaca Ethiopia ee markaasi ku saabsan raadinta marin badeed laakiin markan Ethiopia qorshe halis ah ay la imaatay taas oo qaramada midoobay iyo danayaasha gobolka ay ka dhaadhicinayaan in qaabkii ay ku baxday dekadaasi casab iyo badda cas loo baahan yahay in dib loogu laabto wax la iska weydiiyo Abiy Ahmedna waxa uu sheegay in uusan gacanta ku haynin ama uusan arag dokumentiyo ama waraaqo cadaynaya in sifa sharci ah ay badda cas ku weyday Ethiopia haddaba taas macnaheeda waxa ay ka dhigan tahay in Ethiopia markani ay xalaalaysanayso in dekadaasi iyadu ay xaq u leedahay haddaba dagaalka Ethiopia iyo Eritrea waa mid soo degdegi doona daawadayaal sidoo kalena goor kasta ka dhex qarxi kara labada dhinac Ethiopia hub culus ayaa markaasi ay soo gadanaysay waayadii u dambeysay kaas oo la ogaa ujeedka ay u soo gadanaysay inuu yahay in bad ay si xoog ah ku hesho isla markaana dawladaha dariska dawlad ay markaasi dagaal ku qaadi doonto iyadoo oo isku day ka samaysay dhanka Soomaaliya balse ku guul dareystay laakiin ugu dambeyn waxa ay cadaysay mowqifkeeda iyo halka markaasi ay dagaalka ku qaadi doonto wax Ethiopia ay qarisay oo rabitaankeeda ku aadan markani ma jiro arrintan ayaana imaanaysa xilli madaxweynaha Eritrea Afwerki uu ku sugan yahay magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaas oo dib ay boardka uga jafayaan heshiiskii 3 geesoodka ah ee markaasi halka dhinac looga soo horjeeday Ethiopia waxaana halkaasi ku biiray oo tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida warbixinteennii hore ee xalay aynu ku soo gudbinay haddaba dhaqdhaqaaq xoogan ayaa gobolka ka socda mar kalena gobolku waxa uu martigelin doonaa dagaal culus oo markaasi ka qarxa geeska Afrika haddaba daawadayaal aadan faarax oo markaasi danihii dadkiisa shacabka ee Soomaalida ka hadli waayay markani waxa uu ka hadlayaa badda iyo rabitaanka Ethiopia waxa uuna hadalkiisa ku biiriyay madaxdii isaga ka horeysay ee Abiy Ahmed oo ka mid ka ahaa ee sida kala duwan uga hadlayay raadinta marin badeed iyo in ay xaq u leedahay dekada casab ee dalkaasi Eritrea intaas ayaan ku soo gabagabeynaa akhyaaray daawashada muuqaalka hadii aad halkan la soo gaadheen ku mahadsanidin wixii ka soo kordha muuqaaladeena dambe ayaad ku daawan doontaan idamkeena nabadgelyo